إن أن حرق كجرنو راشين أن حولا ويبنين راشيكا وحودين هاي لباتن إيو تضبكون لبا بغولي لحدن باق أمسلور ووحلي رادا رينج كيبسه أمسا إن هالتان إي بغولكون أوكيلا وعاكلو كجرا أفركون أو جركان أو وحلي رادا مولاسسه iyo 2,000 oo cusba oo xoolaha loogu tiragalay waxaan aaminsan inay caawinayso 22,000 oo neef ilaa iyo 60 maalin ay ku noolaan karaan insha Allah taala waan ogsoonahay kuma filna xoolahan haysano لكن waxaa loogu tiragalay xoolaha haraaga oo dadka la baxsan waayay ay county gudihiisa ay ku haystaan marka walaalayaal abaarahan culays weyn ay noo keeneen waxyaabo badan oo nagu tiragalnay horumar kale ayaan ku qasbanahay in aan soo leexino oo isku dayno in aan badbaadino bulshada haddii abaartan aysan jirin maanta annaga inta badan xoolaheena beero kuma haynee waxaan ku daajinaa dhulka ilaahay soo ma roob uu ilaahayna siiyey cawskii ka soo baxay aan xoolaha ku daaqsana marka haddii roob aad jiri lahaa oo cawska aad jiri lahaa lacagtan maanta cunadan gashe wax kale ay qaban lahayd ma jirtaa mas ma jirto ama istaal ay dhisi lahayd ama iskuul ay dhisi lahayd ama wadda ay dhisi lahayd wax kale ay samayn lahayd marka waxaan ku qasbanaanay in barnaamijyo badan aan kansalno si aan raashin u gadno si aan cunno xoolo u gadno kharashaadka ku baxayo ceelasha maalintii yoomi waxaa jabta ugu yaraan 7 ceel maalimaha barkood waa 10 waa in la hagaajiyo waay shalay waxaa lii soo sheegay biyaha aan booyadaha ku geyno meelaha barkood in dad laga gado wasiirka biyaha inuu inta joogin kala moogi waa hadalnay xale lacagaha darawaliinta annagaa bixinayno qolada finance-kana waxaan ku yidhi ha lagu bixiya week darawal walba lacagtiisa 7 maalin marka ay dhamaata ha la siiyo M-Pesa hala wada haystaa M-Pesa gooda ha loo geliyo laakiin aysan dhicin in bulshada laga qaada ama se laga gada biyo booyad dawladda ay ku geysay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta naga samata bixiyo roobna ilaahay noo keeno ducadaasna waxaan alla ka baryaynaa inuu naga aqbalo insha Allah waxaa xigta abaartani way nagu daba dheeraatay waxa laala iyo wixii yimaado oo masiiban in loo safray u baahan tahay laakiin dawlad ahaan wixii karaankanaga waxna waan qabanay waxna waa wadnaa waxna way soo socdaan dhaqaale badan baan ilaa hadda ku baxay abaartan ka hortaggeeda gabana ayaa tafaasiisha nasiin doona insha Allah wax badanna waa hindisahaasi waana wadnaa dhaqaalahan meel iskama yaallo waa in meel laga keeno meelaha yani waaxyada kala duwan ee dawladda departmentska ayaa laga soo jarjaraa si abaartan looga hortago waxaan ugu soo wajahan Ramadaan waqti kululna waa lagu jiraa abaartanna waa lagu jiraa waxay u baahan tahay marka inaynu iska kaashano
waxa laali iyo wixii looga hortagi lahaa abaaraha iskaashigan kaliya ma aha dawladda countiga waxaan u baahannahay private sector ganacsatada halkan intii joogto intana maqlaysaba inay iyagana qayb weyn ay ka qaataan hawshan qayb libaax ka qaataan iyagana aysan ku ekaanin kaliya dawladda countiga ismaamulkan Wajeer aysan ku ekaanin waxaa kaloo hadda ka yimi shir aan isugu yeeray si uu ku amray waa governor shalay meeshii aan ku tukanaynay shalay inaan la kulanno hay'adaha samafalka haddaan ka soo baxay iyagana wax badan way hayaan laakiin waxaan ka codsanay inay ballaariyaan kor u qaadaan waxay wadaan marka countiga tafasiil dheeraad waxaan siin doonaa governorga waxaan qabanay iyo waxaan qaban doono iyo tan hadda aan daahfurayno oo xariga ka darayno waxaan ku booriyay sidoo kale ganacsatada inaysan meel fadhinin ramadaan baa nagu wajahan ramadaanka asaga dadkii way baahan yihiin dad baa laga yaabaa macluul inay u dhintaan Allah naga xijaabo laakiin meelna u fadhino ma inaan iskaashana loo baahan yahay gacmaha iska qabsano hay'adaha samafalka sidoo kale iyagana maanta waa ku booriyay isbuuc walbana waa la kulmi doonaa insha Allah sidii uu ku amray baa governorga in aan baashan iska kaashano ilaahay baa samata bixin kare laakiin anagana aan kasbashadii keensan insha Allah aniga aadan garad baa la dhahaa Wajeer county abaara ka jirta abaartana ilaahay subxaanahu qaadir baa naga bixin kara waxay gacan bile aadan ay gashi oo naga bixin karta ma laha dadka waxaan rabnaa muslimiin baan nahay in abaartan ilaahay naga dulqaado oo ilaahay naga bixiyo oon bile aadan aan dhinaana soo gaara aan dhana ilaahay oo na soo gaar badan dhiilaan bile aadan na soo gaar ilaahay oo na soo gaar dhan mideeda kala maanta county government waxay loo jiganaysay cuntada xoolaha laakiin waxaan rabnaa laba raab inay ka dhigtay midda hadda maanta ay baxsamaa haddana ta kale in la bixiyo Luqmaan ugaas Jimcaale waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada maanta jirta oo rabbaani oo ilaahay as keenay dhibaatada maanta jirta xagga rabbaani wax ilaahay keenay wax ibn aadan keenay maaha laakiin waxa cod soo jeedinayna dawladda countiga way dadaashay aad bay u dadaashay dawladdan laba Axmed dawladooda aad bay u dadaashay wax weyn waa qabteen laakiin tabartii ayaa ka badatay oo u baahan national government in مساعد weyn ka lama ogi arrinta countiga way ka weynaatay waxaan baryaynaa in aad iyo aad waxa dawladda loo qabta dadaalkii aad laba raabtaan haddayna dadka casabada bixin waxa madax u qolaysiina ma jirin dadkii ayaa baahaya ina dadka asbad baadisan ilaahay wax badbaadiya